codsi lagu dalbanayo in dowladda Ingiriisku ay fiisaha dalku-galkeeda kala noqoto fanaanka Maxamed Saciid Cabdi Biike ayaa hadda ka bilaabmay waddankaasi. Fanaanka Maxamed oo lagu eedeynayo qaabkii uu uga hadlay qaraxyadii ka dhacay Sabtidii magaalada Muqdisho. Ilaahay ha ka saaro Muqdisho, Ilaahay nabad ha ka dhigo. waxaan ka codsan lahaa inay Soomaaliland sii daayaan, iyaguna nabad bay helayaan. waayo hadday u ogolaadaan ictiraafkooda, qaraxa iyo dhibaataduna way ka baxaysaa. waa walaalahood. Muqdisho haddii la iga maqlayo waxaa loo lahaa Soomaaliland sii daaya. haddaan la isxaqirayn waa dad jira, madaxweyneyaal fara badan soo maray, la isma qariyo. anigu cidna kama hibaysto. Soomaaliland ha noolaato. soomaalida kale oo dhan waa salaamaya. intaa haddii la jarayo Soomaaliland ha noolaato. aad baad umahadsantahay. Soomaalida ayaa Ingiriiska ka dalbanaya in ay saxeexaan si loogu gudbiyo dowladda oo la doonayo in ay kala noqoto fiisaha. Midda dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaasi Ingiriiska ayaa ilaa hadda furay codsi ay dadweynuhu saxeexi karaan, kaas oo loo gudbin doono dowladda si ay fiisaha ugala noqoto Biike oo ilaa hadda ku sugan waddankaasi. Codsiga hore oo ay wado gabadh lagu magacaabo Ayaan Aadan oo degan magaalada London oo lagu dalbanayo in dowladda Ingiriisku ay fiisaha dalku-galkeeda kaga xayuubiso Maxamed Saciid Cabdi Biike ayaa kor u dhaafaya codadkii loo baahnaa in la helo si ay dowladda Ingiriisku jawaab uga bixiso, kaas oo ahaa 10,000 oo cod, balse waxaa ilaa hadda codsigan saxeexay dad kor u dhaafaya 11,000 oo cod. Codsigan oo noqonaya kii ugu horreeyay oo ay saxeexaan dad Soomaali oo tiradaasi gaadhaya ayuu sharcigu dhigayaa in dowladdu uga soo jawaabto, maadaama uu gaadhay islamarkaana uu dhaafay tiradii lagu gudbinayay. Sidoo kale haddii codsigan ka dhanka ah fanaanka Maxamed Biike ay saxeexaan dad gaadhaya 100,000 oo qof, waxaa ka fadhiisan doona islamarkaana loo gudbin doonaa baarlamaanka dalka Ingiriiska. Qorshahan ayaa haddii lagu fuliyo fanaanka waxa uu ku noqon doonaa waji-qabax foolxun, iyada oo laga saari doono waddanka Ingiriiska oo hadda ku jooga fiise, waxaana dhaawac ku keeni doontaa mustaqbalka fankiisa. Sidoo kale tallaabadan ayaa tusaale u noqon doonta cid kasta oo isku dayda in ay hadal nacayb ah kula kacaan dad Soomaaliyeed oo ay dhibaato soo gaadhay. daawada fadlan subscribe noo saar si ay dhiirigelin noogu noqoto, gambalaalkana furo si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada aanu soo gelino channelka. muuqaalkan haddii aad ka heshay fadlan like saar, sidoo kale share si uu gaadho asxaabta inta kale. wixii talaabo nagu reeb commentiga. mahadsanid.